بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. الحقيقة warburtiyeedkii shalay ka soo baxay teendhada afasyooni ee ay ku shirayeen maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha ee loo idmaday hannaanka doorashada Soomaaliya anigu ma diidin. sababta aanan u diidin waxa weeye waa wixii ay Soomaalidu rabtay wayna galabsadeen. kol haddii waxa aad ka shaqaynayso aadan garanayn waa inaad qaadataa wixii kaaga soo baxa oo macaasha. ma rabo inaan taariikhda dib ugu noqdo. weydinkii yidhi farmaajaana boobaya, weydinkii yidhi xoogag waddaniyiina buu samaystay, weydinkii yidhi waa diktaatori, weydinkii yidhi qodobkaa intaasaan ku dhaafayaa. bishii abriil, xusuusta abriil wixii dhacay, qax baa dhacay, xabad baa dhacday, ciidamaa la ururiyey, ciidamadii baa la kala jebiyey, tolle ayay baa la yidhi. waa inaynu farmaajo madaxtooyada ka saaraa baa la yidhi. wixii macaasha ee arrintaa ka soo baxay war maanta waad haysataane qaata oo xamila. iyadana qodobkaas ayaan kaga baxayaa. war murtiyeedka ka soo baxay shalayto madasha ee maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha wuxuu ahaa dee sidii doorasho loo geli lahaa. hadduu khanaadh yahay waa in la laqaa, hadduu macaan yahayna waa in la laqaa. gar dabadeedna guuguubaa nacay. maxaa yeelay midhihii la beeray weeye waxa shalay soo baxay. midhahaana waa in la gurtaa. alxaqiiqa 12 bilood ayaa niman madaxdii hore ah, madaxweynayaal, ra'iisul wasaare, wasiiro, waxay ku shirayeen hotel jasiira. waxay eedaynayeen farmaajo. farmaajo doorashadii waa wareejiyey, ra'iisul wasaaruu ku wareejiyey. way hambalyeeyeen, way soo dhoweeyeen, maamul goboleedyadii bay soo dhoweeyeen. farmaajo waa meel buu fadhiistay. wuxuu yidhi maalinta teendhada la tegaayo ee murashaxiintu imanayaan ee la leeyahay doorashaa loo dareeray, intaa ka horraysa iska seexo. wixii ay ka shaqaynayeen macaashkeedii saakay hayaane ha loo dulqaato. qaylo waxba tari mayso, qoraal la qoraa waxba tari maayo. awooddii dalka maamul goboleed baa la wareegay. anigu raalli kama aanan ahayn inay la wareegaan, laakiin gacantaa loo geliyey.
yaa u geliyey nimanka jasiiro ku shiraa u geliyey nimankii dadka qaxiyey baa u geliyey nimankii ciidda dhigtay baa u geliyey doorashadani waa boob macaashkii ka soo baxay wixii hore wuxuu noqday doorashada in la boobo waana boob doorashadani macaashkeedii waad haysaan rag iyo dumar soomaaliyay waa inaan la xamilaa waa in la qaataa maxaa yeelay beerta aad beerato midhaha ka soo go'a dee adaa iska leh qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa wax alla wixii dhacay iyo sida hadda ay tahay iyo sida ay ahaan doonto haddii alla yidhaahdo anigu siday ahaan doonto ilaahay waxba lama ogi wax kale maaha nacaybkii farmaajo la nebcaa midhihii ka dhashay weeye qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa caqli hadduu talin waayo garasho hadday talin weydo institutions hadduu talin waayo oo anaaniyo taliso oo qabiil taliyo oo senatar baan rabaa taliyo oo xildhibaan baan rabaa taliyo oo madaxweynaan rabaa taliyo oo sida uu rabo inuu ku taliyo uu doonaayo waa sidaa shalay soo baxday oo kale sidaa shalay soo baxdayna sabab loo diido ma garanayo maxaa wacay waa wixii aynu rabnay waa wixii aad rabteen qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa gar dabadeed guuguubaa nacay ma dhammaato looma baahna war murtiyeedkaa shalay soo baxay nin walooba wixii kaaga soo baxa qaado doorashadana ha loo dareero nin walooba waxaad boobi karto boob ilan waa doorasho boob oo cad ah aqalkii sanaa la boobay oo aad soo taagan tihiin kan hoosena waa la mid xalqadahaygii horaan idinku sheegay waa waxaad galabsateen waa waxaad ilaahay weyddiisateen waa wixii aan idinka taag la'aa waa wixii aan idinka waaninayey waa diiddeen anigu waa soo dhoweeyey aniga iyo intii ila tala ahayba waa soo dhowaysay maxaa yeelay muxuu calaacaltani waxba ma tarayo qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa halla guro ulaha waa guddoon waana shay gara ee gaadmo iyo ninkaan laga filayn gacan fuday toonna eegana tukubihiisa waa lagu gargaaraa alxaqiiqa tuducaas qiimuu ku fadhiyaa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحقيقة